niman wehelnay waanu tol noqonay oo madaxweynaha galmudug ayaa halka igu casuumay waanu tagay kaas waa nidii xaq Saleebana inka cali sakileyda oo quraata ayaa meesha mariyay yimid waliya kale fanaaniintii ma iman qofka saasoo kala shaqaalo oo kale aday u cuskanayaan qodobde military oo kale ama wixii ugu yaalaa loo eegaya sharciga askariga oo kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. Daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wareysi aan ka qaadi doono Abwaan Jiheeye oo kamid ah abwaanada reer Somaliland maalmihii ugu dambeeyayna ku sugnaa caasimadda Dhuusamareeb iyadoo hadalhayn badan ay ka dhalatay munaasabadii Galmudug oo uu ka qayb galay. Abwaan ugu horeyn ku soo dhawow Luqmaan Media TV. Waan ku dhawahay Luqmaan. Abwaan ugu horeyn waad mahadsan tahay. hadalhayn badan ayaa ka dhalatay socdaalkaaga Galmudug inaad munaasabada ka qayb gashay in qayb ay ka tahay mashruuc dawladda Soomaaliya doonayso in ay isku dhex galaan maamulada Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Somaliland oo lagu caadiyeeyo in calankii Soomaaliya uu dushaada ka ruxanayay inaad qaranimada Somaliland ku xadgudubtay intaasiba maxaad aad u kooran lahayd? Waa koowe waxa weeyaan inaan ka qayb galay munaasabadii Galmudug waa maragmadoona waa wax jira munaasabada Galmudug aan ka qayb galay 14 bishii sideedaad aan tagay hadafkii aan u tagay hadaf cad oo aan ka labaynayn oo waadaxa baan u tagay oo maxaya niman wehelnay waanu tol noqonay reerkiisaba oo madaxweynaha Galmudug ayaa halka igu casuumay oo igu marti qaaday waanu tagay kaas waa nidii xaq Saleebana xaaladaan ku talownay ama ku ilmaadeeroonayna arrin umada ku cusub ma yahay arrin horeba u jirtay oo odayaashooda xaqaan ugu yimaadeen oo anagana kuway xaqay yimaadeen oo korodii warkay loo hayay way jirtay dadka intii soo jeeda kulli waa ka warhaysay kaas waanu ehelnay baan tagay dadna sida daraadeed baan uga qayb galay horti arrinka isagaana igu macsuumay kowdul inta wax labalayay iyo nin wax ka baqay iyo nin been sheegay mihii hadafkaas aan tagay in Soomaaliya doonayso inay isdhex galaan maamuladeeda iyo qaranka Somaliland adiguna mashruucaad qayb ka noqotay calankii Soomaaliya oo dushaada ka babanayay markaad munaasabadaasi joogtay calanka Galmudug in meesha ka babanayo oo munaasabadiisiba tahay iyo kii Soomaaliya Galmudug baan anagu arkaynay ka Soomaaliya ma arkaynay isaga laftigiisu Soomaaliya ka mid yahay calanka Somaliland meesha waa yaalay waxa leeyo ka Galmudug iyo ka Somaliland iyo kii la doono waa isaan kaliya laakiin ka Somaliland baa dusha laga soo saaray ka Somaliland markaa huwan baan hadlay waxaad gudub maaha ka Somaliland iyo kuwii maamuladu in isku meel lagu soo qaado iskar yeelaan waxaan kuulay waxaan anigu qabaa calanka Somaliland cidii kor u qaadaabay inay maamuus ku soo kordhisay waxay caddaynaysaa inaan cid cugdad ka qabtaa ama ka soo horjeeda ahayn cid calanka Somaliland kor u qaada calanka kor u qaada waa cid ku muunaysay Somaliland maanta qura laguma xuseynay mudaba musabix xilligu joog Galmudug waa calankeedu uu ka baban jiray ka Somaliland Galmudug ka baban jiray ka Galmudugna Somaliland waa ka baban jiray inta horeba lama oran jirin oo markaan anagu tagnay ayu xaalano cid hore u tagi jirtay ma jirtaa adiga horta kama warayo dadka ma tirsaday tagistooda imkaan xaaladda iyo qofka iyo deyn lagu soo marti qaado tagta weeyaan koob ayuun baan ku tagay tootali cid aan anagu markaa wada soconay iyo cid aan isku hadaf ka nahay imaatinka meesha ama aan isku downimidba ima jirto in kala ilaa qool oo aan kulay ayaa marti qaaday meesha waan u tagay waan kala qayb galay waajibna way ugu ahayd inaan kala qayb galo wax istaagaya qadiyadaas ma aha wajiyadu anigu siyaasadda haddii aan tagayo oo ay iga soo godo inaan siyaasad u tago waan cadaysan lahaa Xasan Sheekh Maxamuud baan u tagi lahaa Galmudug buu joogaa isagoo hadda miya uu joogaa imka Galmudug maanta lagu soo dhaweeyay anigu kama qayb galin laakiin waa lagu soo dhaweeyay ka qaybgalkana hadafkii aan maanta u socday ma ahayn Xasan Sheekh Maxamuud iyo soo dhaweeyay laakiin nin baan u yimid aan soo hambaliyay aan xafladiisa kala soo qayb galay talabaad aad tiri maxaan ku dhahay qadiyadda Somaliland buu ka soo horjeestay qadiyadda Somaliland afkayga lagama maqal cid ay ugu tiraahdana waa cid gafaysa dadka qaar baa lagu xantaayay ma banihin cid lagu xaman jiray Somaliland ka soo horjeedaan iyo waxyaalaha in badan baan maqlaayay eriyada laakiin riix salaabaan maadeernay baan dawti talabaad qadiyadda Somaliland waxaan ka taaganay wax la yiri burjeex waxa galay burjeex la fayaaja kaga maqantay laga maqantay dadkuna waa u siman yahay qadiyadda Somaliland la sheegay leeyahay ka hor yimidna
عداسي نفتو دي إلهي وبيان بيوشن ونشنالتي سومالنا ودرشاديدا nin dhalashadiisa dafiraya oo cid kale iyo meel kale sheegtayna ma ihi mana noqon doono luqmaanow dadka xariga iyo waxaan ka cawsadana ma ihi dalay ka jeejeynayaan ma ihi dhalashadaydu waa Somaliland oo muran kala taagno cidna uu muddo istaagay haddii caaw kulka laga tarayo waxaan ummadda u sheegayaa Somaliland haddii la itiraafo iyo haddaan la itiraafinba ummadda saddex shay marnaba kuma kala goyn karto oo waa ay weligood sidan kartaa saddex walaa laguma kala goyn karo waa diinta kow dhaqanka laba waa afka saddex iyo hadday tahay ajaanib afka bartayba ninuu xil ka saaran yahay oo ay waajib ku tahay inuu cid kaste intuu ka caawin kara ka caawiyo abwaad Soomaaliyeed lama oran kara dee halkan maxaad u martay tan maxaad uga tagtay isagoo ummad Soomaaliyeed la hadlaya maxaad ka oran lahayd haddii ayba dhacdo in qaramada Somaliland ku xadgudubto lagu soo eedeeyo oo lagu xiro maxaad taa ka oran lahayd no one above the law ma jiro qof sharciga ka sareeya oo waxa weeyaan waraysigayga kalabaad ku xigsinaysa waan gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali noqda oo tiraahda ma sharci baa jira ninka abwaanka iyo banaanka u diidi kara inuu umar afka Soomaaliga ku hadlaysa intuu taga la wadaaga suugaaniyaas laakiin munaasabad siyaasadeedsan oo xuskooda inuu ka qayb galo soo sharcigu taama diidayo maamul Soomaaliyaana Soomaha marka run laga wada hadlo munaasabada siyaasadeedsan waxa weeyaan maalin farxadeed oo ay faraxsan yihiin bay ahayd hambaliyo wayna soo yiraahdaan anna hambaliyo baan idhi mid labaad nin tolima laga dhaxaysan tagoon soo hambaliyay waajibna way wahay soo kama hor imanayso in arrin siyaasadeed oo xus maamul Soomaaliya ka tirsan sanad guridiisa ay loogu xilxilay xamar yimid baan ku leeyahay waliba ka qayb galay meel kale laba wiil yeelan bay haayeen xalagu istaabal kulli xiligiisii yahay aadan xaaji cali bareera cad ku istaagay sharcina ma ahayn imanka dee umurahan dhacayo dadkan lagu xidhxidhay dee wuxuu aamusay dee waxaan kuli kuwa hore xilligii Cabdiraxmaan iyo lagu xidhay iyo cirre iyo maalintii xamda kuwin waa kii faraha laga qaadaalka la mariyay lagu sharciga kuma haysataan cidii haysatay qaran oo arrintaadana kale loo xiray maxaad ka aaminsantii waxaan ka aaminsanahay waxa la yiri xaajadu ma urtan baab sawa ugu ma qadan bilowday samay bilaabina calanka horeba Somaliland looga luli jiray calanka Somaliland horeba waa looga luli jiray kii baanay ku lushay wareegto ama qodob ka soo baxay oo baarlamaanku soo ansixiyay ama maxkamaddu soo saartay ama madaxweynuhu ka dhawaaqay calanka dib looga xusi karo oo digniin oo jiidayna ma jirto arrin soo dhici jirtay digniinna aan laga bixin ayay dee samaysay marka dadkuna haddii waxaan hore loo qaban jiray in la yidhaahdo waa la joojiyay soo maha dee waa la joojiyay hadday kusoo bixi laydoo sharciyo way dee joojin laydoo may samayseen dee horeba hargeysa loogama dabaaldegino munaasabad laguma qabanayo ilaaba ugu horreysay afkeedana ka sheegtay intaan la xidhin taa mar wal oo galmudug ay dabaaldegayso meel walo Somalilandba waa laga luli jiray oo dadkoo saa u haysto oo iyadoo dee munaasabadneynta xaflada waaweyn qabatay sanadkan gurigeeda wax ku dhex samaysay oo calanka deedo loo heesay markii hore halka way ka luli jireen dee halkii uu bayna ka lushay tirada ka dhaxayn karta maamul Soomaaliya iyo Somaliland waa maxay dee waa tii ka dhaxayn jirtay ay Somaliland iyo galmudug anu ma saaxiibsiine iyagoo saaxiiba anagu meel reerka xaaji Saleemaan inuu helkan noqonayaan sidoo qura uma tagin iyagu tagiyo deegaanadooda iyo halkay degan iyo goob kastay Soomaaliya ka degan iyo goob kastay Kenya ka degan waa soo maraya socdaalkayguna uu dheeriyaa halkaas ku weekay inanka cali saki layda oo quraata ayaa meesha mareeb yimid waliya kale fanaaniinta ma iman laakiin munaasabad xus lagu sameeyay malaam Muqdisho ayay ka qayb galeen marka inankaas man arkayay magaranaysaa markuu heesay aan arkay dibadna heestaas uu socdaan nimadkiina ka noqdayba meesha fanaaniinta shaqaalaha dawladda ama askarta ah oo kale waxa la oran karaa iyagoo askar bay baxeen waa arrin lagu qabsan karo umurahaas oo kale hadii loo cuskado qaarkood dawladdan kama qaato mushaar ee joogtada kama qaadan jirin tii kasii horeysayna kama qaadan jirin malaam xilligii magaranaysaa ina riyaal ayaan maalmo malaam mushaar ka qaatay waxoogaa qaadan jiray oo ugu dambeysay marka qofka saas oo kale shaqaale oo kale haday u cuskanayaan qodob military oo kale ama kama hor iman kara sharciyan wixii ugu yaala
eegaya sharciga askariga oo kale hadduu sharci yahay dadka qabanayana dee ganacsatada waaweyn hala xidho dee mise waxaa leeyahay miskiinka miskiin la cuskada leh haddii la leeyahay iyo fulaaniinta yaryar na waa halkeeda daanigi baaba yidhi waxaan kuri meel walba markaan arkay shirkadihii waxay waaweynaa oo ka wada shaqaynaya ganacsatadii oo waxaan kuri hawlaheeda qabsanaysa intaasoo maanta 27 ganacsatada ganacsatada nala saarnaayo aan mid walba waxbaan tagaya shaqo ayaa halkaa ugu ma fahamtay oo badankooda halkaas ku barnay waxaa la cadaalad ayna dad uga mariyo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan jiheeyo Luqmaan Media TV u waramayso oo ku sugan Dhuuso Mareeb abwaan aad u mahadsan tahay adiga